kulanti waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo ciidankii ugu badnaa ku soo daabulaysa gudaha wadanka Soomaaliya xilli uu sii xumaanayo xidhiidhka u dhaxeeya xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa. Somaliland oo qaadatay go'aan adag kadib markii ay u soo jeedisay dadka ajaanibta ah inay uga baxaan deegaanadeeda maalmo kooban gudahood. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo sheegay in dowladdiisu ay qaadayso guluf xooggan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, una soo jeediyey warbaahinta Soomaaliyeed inayna dhexdhexaad ka noqonin dagaalka dowladda iyo Al-Shabaab. Qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana fura si aad ula socdid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino. Lownee daawadayaal sida hordhaca wararkeena aad ku maqasheen, dowladda Itoobiya ayaa abaabulaysa in ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan militariga ay u soo daabusho gudaha wadanka Soomaaliya iyadoo ku marmarsiyoonaysa dagaalada goosgooska ee ka socda xuduudda Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya una dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka Soomaalida. Xilligii booliiska loo yaqaano xilli uu hoos u sii dhacayo xidhiidhka wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, kooxda Al-Shabaab ayaa dhulka Soomaaliyeed ee maamusha Itoobiya ka weerartay xadka kala qaybiya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, iyada oo hadda soo baxayo shaki cusub oo la xidhiidha dana gaar ah oo Itoobiya ka leedahay dagaalkaasi. Ciidamada Al-Shabaabka oo la sheegay in markii hore ay gudaha u galeen Itoobiya xuduudkeeda 70 ilaa 100 kiiloomitir, ayaa markii dambe la sheegay in la laayay. Sida lagu xusay war ka soo baxay maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaa su'aalihii markii hore soo baxayay ka mid ahayd sababta ay ku dhacday inay u suuro gasho ilaa iyo masaafadaasi ay socdaan ururka Al-Shabaab iyagoo aan wax iska caabina la kulmin marka laga reebo dagaalkii hore ee bilowgii dhacay. Warar badan ayaa sheegaya sidoo kale in laga warqab bilowgoodiiba isdiyaarintii ururka Al-Shabaab ay doonayeen inay Itoobiya ku dhex galaan. Warar ka soo baxaya ee warbaahintu heshay waxay sheegayaan in Itoobiya ay u adeegsanayso weerarka Al-Shabaab xilli uu booliiska sabab ah in ciidan ka badan kumanaan askari oo ka tirsan militarigeeda ay soo geliso gudaha wadanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale la isweydiinayo halka ay ciidamadaasi jireen markii hore ee Al-Shabaab gudaha u galayeen xuduudda Itoobiya. Intani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hadda hoos u sii dhacayo xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya aad u wanaagsanaa sanadihii lasoo dhaafay, hase yeeshee ka soo degay halkiisii markii loo dhaariyey xafiiska madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha tobnaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Ladana uu ka degay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay arrintani ay soo xoogaysatay kadib markii madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Siisi oo ka garab hadlayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo buuxinta webiga Niilka ku samaynayso dowladda Itoobiya. Qaar ay soo xigatay warbaahintu waxay sheegayaan in haddii ay Soomaaliya isku xumaadaan Itoobiya inay doonayso inay la shuraakowdo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xiga dhanka xuduudda xuquuqa xidhiidhkii Jubbaland ay la lahayd Kenya intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo adeegsanaysa dowladda Itoobiya ciidanka kumanaanka gaadhaya kana tirsan militarigeeda ay soo gelinayso xuduudda. Walow aysan jirin tallaabo rasmi oo hadda la qaaday, misna waxaa la dareemayaa in xidhiidhka Soomaaliya iyo Itoobiya uu gaadhay heerkii ugu hooseeyey iyo markii uu xilka Soomaaliya la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Toddobaadkii hore ayaa dowladda Itoobiya ay baajisay oo ay dib u dhigtay booqasho aan la cayimin oo uu ku tegay magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi dib uga soo laabtay wadanka Jabuuti, iyadoo la sheegay in sawirka ay sameeyeen booqashooyinka isdaba jooga ah ee Xasan Sheekh Maxamuud ay ka xumaatay Addis Ababa maadaamuu dhinacyada ka marmaray balse uuna iyaga weli booqanin. Itoobiya waxay cadho xooggan ka qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga hormaray wadamo fara badan oo ku yaala gobolka, iyadoo Itoobiya ay tahay wadan daris la ah Soomaaliya dana badanna ay ka dhexeeyaan, waxayna doonaysay in markow laga dhigo ama haddii ayna suuro gelin mar laba laga dhigo booqashooyinka ugu horeysa ee dalka dibaddiisa uu ku tegayo Xasan Sheekh Maxamuud. Itoobiya waxay sidoo kale doonaysay in meesha laga saarin xiriirkii wanaagsan ay la lahayd Soomaaliya intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda
aan muhiimad weyn siinaynin xidhiidhkii ay sanadihii dambe Itoobiya la lahayd Soomaaliya. Waxaa jirta arrin muhiim u ah Itoobiya oo markii horeba u wanaajisay ay la leedahay Soomaaliya, taasi oo ahayd xiisadda kala dhexaysa waddankeeda dalka Masar na xidhiidhanka webiga Niil oo dowladda Itoobiya ay doonayso inay cunto ka dhaliso. Yeeshee Qaahira oo dalkeedu ay ku tiirsan yihiin biyaha Niilka ay ka soo horjeedo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jooga hadda magaalada Qaahira ee xarunta Masar, shir jaraa'id oo maalin ka hor si wadajir ah u qabteen isagii iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi. Waxaa lagu soo hadal qaaday arrimo quseeya biyo xidheenka webiga Niilka, isagoo madaxweynaha Masaaridu al-Siisi sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud taageersan yahay dadaallada lagu xallinayo muranka webiga Niilka laguna joojiyo xidheenka ay samaynayso Itoobiya. Madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana isagu waxa uu taageersanaa Itoobiya marka ay timaado muranka xidheenka webiga Niilka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Masar. Dadka Soomaaliyeed oo aan jeclayn ciidanka dowladda Itoobiya ayaana hadda ka digaya khatarta ka dhalan karta haddii ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ahayn kuwa qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM u soo galaan waddanka Soomaaliya iyagoo ku marmarsiyoonaya inay la dagaalamayaan argagixiso. Somalilan ayaa muddo 20 maalmood ah u qabatay inay dalkeeda kaga baxaan dadka ajaanibta ah aan haysanin sharciga rasmiga ah. Hadalkani oo ka soo baxay ciidanka laanta socdaalka ee Somalilan ayaa walwal ku abuuraya dad fara badan oo ah kuwayna Somalilan muwaadiniinta u aqoonin kuna sugan Somalilan. Liiska ciidamada Somalilan wuxuu ku wargelinayaa ajaanibta sifada sharci darrada ah ku jooga dalka Somalilan inay kaga baxaan muddo 20 cisho ah oo ka bilaabanaysa 28-ka bisha 7 2022 ilaa 17 bisha 8 2022. Sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shirkadaha, hay'adaha iyo ganacsatada ay ka howlgalaan shaqaale ajaanib ah inay ka shaqeeyaan oo qura ajaanibta haysta ku jooga saxda ah fiisaha ama qaxootiga. Waxaa looga digayaa goobta ganacsi, shirkad ama hay'ad lagu qaalo bilaa sharci ah oo ku jooga Jamhuuriyadda Somalilan oo ka shaqeeya in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan mulkiilaha goobtaasi, ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay laanta socdaalka ee Somalilan. Ujeeddada ay arrinkani ka leedahay Somalilan ayaa durbadiiba loo fasirtay inay u dan leedahay dadka ka imanaya koonfurta Soomaaliya tagaya deegaanada Somalilan, kuwaasi oo aysan xukuumadda Somalilan u aqoonsanayn inay yihiin muwaadiniin u dhashay waddanka. Arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaanahanba dhalinyaro Soomaaliyeed oo caan ka ah baraha bulshada kuna dhaqan koonfurta waddanka, khaasatan magaalada Muqdisho, ay u dalxiisayeen deegaanada Somalilan si ay halkaasi waqti ugula soo qaataan dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed. Waxaana xusid mudan in dhowaan gabadh dhalinyaro ah oo caan ka ah dagaalka TikTok lana yidhaahdo Miss Wall in laga soo celiyay airport-ka magaalada Hargeysa ee Cigaal kadib markii loo sheegay inaysan gudaha u gali karin Somalilan, waxaana diyaaraddii siday ay dib ugu soo celisay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka. Waxaa sidoo kale jira dhalinyaro fara badan oo gabadhaasi la mid ah iminkana ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somalilan, kuwaasi oo ka tegay caasimadda waddanka ee Muqdisho. Arrintan moodaa inay Soomaaliya ay tallaabo ku qaadayso islamarkaana ay doonayso inay ka saarto deegaanadeeda dadka ka imanaya koonfurta ee dalxiiska u imanaya, iyadoo ka cabsi qabtay in arrintaasi ay abuurto galaangal labada bulsho ee koonfurta iyo waqooyiga, islamarkaana ay caqabad ku noqoto ixtiraafka ay raadinayso. Somalilan 30 sano ka badan ayay sheeganaysaa inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, waxaana go'aankaasi ay ku dhawaaqday sanadkii 1991. Laakiinse ma jiro ilaa iyo imika mid ka mid ah wadamada caalamka oo dal madax bannaan u aqoonsaday Somalilan. Inkastoo ay xusid mudan tahay in Somalilan ay horumar ka samaysay dhinacyada dimuqraadiyadda iyo amniga, balse dunidu waxay weli u garanaysaa gobol ka mid ah waddanka Soomaaliya, waxaana ay ku dadaalaysaa iyadu inay arrintaasi ka fogaato. Waxaana hadda la aaminsan yahay in dadka ajaanibta ku tilmaantay laanta socdaalka ee Somalilan islamarkaana la beegsan doono 20 cisho kadib
inaysan ahayn kuwa ka soo jeeda Itoobiya ama wadamada kale ee ku sugan Somaliland sida ka soo jeeda Djibouti, hase yeeshee waxay ceedsanaysaa inay yihiin dadka ka imanaya koonfurta Soomaaliya khaasatan Muqdisho. Haatana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la tashiya ku saabsan dhismaha xukuumadda la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa qaabilay maamulayaasha warbaahinta ka howlgala gudaha wadanka khaasatan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Intii uu socday kulanka, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo hadal qaaday guluf ballaaran oo dowladiisu ay doonayso inay ku wajahdo ururka Al-Shabaab, isla markaana ay sanado kooban uga sifaynayso dalka. Arrintaasi oo uu sheegay inay lagama maarmaan tahay doorka ay ka qaadanayso warbaahintu. Ra'iisul wasaaraha ayaa u ballan qaaday saxaafadda marka hore xukuumaddiisu ay mudnaan siinayso furnaanta shaqada dowladda iyo xogsiinta shacabka. Waxa uuna tilmaamay doorka ku aadan wacyigelinta bulshada ee dhinacyada amniga iyo la dagaalanka fikradaha argagixisada ee laga sugayo warbaahinta inay dardar geliyaan. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa adkeeyay doorka xukuumadda ee ku aadan dhowridda xorriyadda hadalka, xuquuqda warbaahinta iyo badqabka wariyayaasha, isagoo ku bogaadiyay shaqada ku aadan iyo wacyigelinta ay u hayaan dadka Soomaaliyeed. Bahda saxaafaddu, wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu ay doonayso in ururka Al-Shabaab ay ka sifayso wadanka, arrintaasna ay doorka ugu muhiimsan ay ku leeyihiin warbaahinta oo u muuqday sanadihii dambe kuwa dhexdhexaad ka ah dagaalka dowladda iyo Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa daaha ka qaaday inay tahay waxaan loo dulqaadan karin in warbaahinta Soomaaliyeed ay dhexdhexaad ka noqoto dagaal argagixisadu ay kula jirto dadka Soomaaliyeed. Intaasi oo uu sheegay in loo baahan yahay in warbaahintu ay qeexdo xaqiiqada runtana ay ku dhiirato. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.